بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada Gosar Designs iyo muuqaal cusub insha Allah taala muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa sidee loo diyaariyaa logo design adigoo facekaaga ka sameysanayo waxaan ula jeedaa wajigaaga ama facekaaga ama wajigaas aad u fahmi kartid sidee logo design gareeyaa dabcan waa muuqaal xiiso badan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan fadlan haddii muuqaalkan ku caawiyo nagu dhiirigeli subscribe like asxaabtaan u ogolow waxaa adiga ka faa'iideysatay in ayagana ka faa'iideystaan share u dheh muuqaalkii oo dhammaystiran la socod wanaagsan waxaan soo furanaynaa photoshopka muuqaalka aad idin sheegayay sidaan ayuu u dhigan yahay sawirkan hadda ujeedaan waa sawirka ciyaaryahan fahmi kartaan dabcan suumaan soo dhaho ciyaaryahanka waa fahmi kartaa malah ciyaaryahanku yahay ma idin sheegayay fadlan haddii dabcan aa fahantay adaa fahminba commentiga noogu soo reeb ciyaaryahanka qofku yahay waan dareemi karaa inaa fahmi kartaan marka muhiimadda aan rabo inaan caawi idin faa'iideeyaa waxay tahay logo design badanaan inaa maqasheenaa waa laga yaabaa sidee marka facekaaga ama wajigaaga maadaama baasaboorka adiga aad leedahay wajigaaga yahay sidee logo ugu samaysan kartaa sidee astaan ugu samaysan kartaa okay waxaa laga yaabaa inaad leedahay page waxaa laga yaabaa inaad leedahay Instagram account waxaa laga yaabaa inaad leedahay YouTube channel marka bahda Gosar Designs waxay ka caawinayaan in aad samaysato logo design as facekaaga ama wajigaaga ah la socda stepka aan sameynayo insha Allah taala koodka aan isticmaalayo ama shortkiga aan isticmaalayo shaashada ayaan ku soo qori doonaa la socda marka hore waxaan soo furnaynaa faylka horaan igu sharxay listigan waa toolska aad isticmaalaysid ee ku shaqo gali lahayd site-kana aad joognana waa site-ka ay ku yaaleen faylalka aad ku shaqeynaysid okay qaybtan corona waa qaybta aan shaqada ka bilaabi lahayd tusaalahan oo kale qaanada koowaad qaanada labaad qaanada saddexaad okay markaad waxaan rabaa inaan soo gashto document marka waxaan leeyahay open waxaan rabaa inaan sawir soo gashto qurxoon okay isleenahay okay hal sawir aan soo gashaneynaa maxamed saalax dabcan qofa aqoonin ma lahan ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka dalka faraacinta ama Masar ama Egypt sawirkaan aan soo gashtay maxamed saalax waxaan rabaa sawirkaan inaan ka sameeyo logo design oo wajiga maxamed saalax okay marka waxaan sameynaynaa marka hore waxaan soo dooranaynaa listulkan oo loogu talagalay in lagu sameeyo wax lagu jaro waxyaalaha aad ku jartid marka midkaas dooranaysid waa kan midkaan dhexe oo polygonal lost tool ay ku qoran tahay okay marka waxaan sameynaynaa in la socdo waxaan sameynayaa afan sorry okay afan raan noqda wax kalba sameynay waxaan rabaa inaan doorto inta aan rabo inaan ka dhigto logo design wajiga ciyaaryahankana inaan mar walba in sheego muhiim ahaan ciyaaryahanka qofku yahay saqiir kabiir waxa waaye Soomaalida iyo dunida inta badan way taqaanaa mana u maleynayo qof aan sports ka daawanin in oo dhalinyaro ah oo iska yar tahay marka saaxiibada la socda waxaa sameynaa hadda waxay tahay saas ayaad ku wadaysaa ilaa aad ka dhamaystirto intaad ugu tala gashay
okay marka zoomka aan ka yareeyo markaad waxaan rabaa wejigan maxamed saalaxa inaa uu sameeyo logo insha Allah tacaala waxaa isku dayi doonaa haddii aan ku guuleysto projectkan oo intaanan muuqaalkaas oo bandhigin sawirka aan diyaariyo in aan instagramka maxamed saalax ugu diro laga yaabo inuu reaction kasoo bixiyo laga yaabo inuusan kasoo bixin waa isku dayi doonaa marka la socdo hadda waxaan sameeyay selectionkan aan soo doortay waxaan sameeynaa leeyahay control J shaashada idinkaga muuqata dabcan control J aan leeyahay waxaa ku abuurmay ama ku diyaarsan layer kaleente oo sawirka aad jaratay ah saanta fiiri midaan la socda wax kale ma sameynin selection aan soo dhahay kadibna control J aan dhahay waxaa ii furmay icon kan kale okay waxaan tagayaa image aan tagayaa waxaan dooranaynaa okay adjustment tagaynaa adjustment markaa tagno aan doorano waxaan ka dooranaynaa okay threshold aan dooranaynaa marka sawirka muxuu design yahay wuxuu kugu diyaarsan yahay in aad graft ahaan inaad u samaysatid marka hadda waan haweeneynaa okay hadda wax kale ma sameynin image aad tagay adjustment aad doortay waxaa doortay threshold jidaan threshold aad doortay siiska 67 ka dhigay adiga sida kuula qurxoon aad dhigi kartid ama meesha ku soo baxdo macquulsan ka dhigo waa wax problem ah okay inta markaan soo sameeyo waxaa sameynaya haddana selection aad tagaya jidaan selection aad tagaya waxaan ka dooranayaa color range okay marka color range aan ka doorto marka hadda aan saan dhaho wuxuuna sawirka guud ahaan ay soo baxayo laakiin waxaan ku dhufanayaa qaybtan tinta kor midaan qaybtan tinta kor aan ku dhufanayaa marka waxa ay soo haraayo wejiga bis ay soo haraayo waxaan leeyahay okay afuraan noqda okay aan leeyahay waxaa soo furanayaa filekan waxaan rabaa waxaan hadda soo diyaariyay meel aan dhigaa rabaa marka siiska waxaa qaadanaysaa 1920 1080 jidaan siiskan 1920 ay qaadanaysaa height-kan waxaa qaadanaysaa 1080 resolution-kan waxaa ugu fiican 300 inaad ka dhigatid laakiin ikhtiyaar aad leedahay daaratid 72 ka dhig 200 ka dhig adi inta ku macquulsan aad isla dhig laakiin 300 aa ugu fiican okay ila soo okay aan leeyahay hadda marka waxaa ii soo furmay new environment kale ii soo furmay ama window aan ku shaqeynayo okay waxaa tagaynaa horta aan looga qaado gallery aad tagayaa okay marka hadda waxaa ii diyaarsan gradient overlay-ga aad ii diyaarsan marka waxaa laga yaabaa inaa isdhahdid gradient overlay-ga sidoo loo diyaariyaa okay waa ku tusaya idan naxwiin maahan saa usoo dooranay waa fahmi kartaan malaha waxaan imaanay inta kadib waxaan ku dhufanay gradient overlay-ga ku dhufanay anoo ii diyaarsanaa cashig markaa diyaarinayo ii diyaarsanaa marka dhib malahan hadda ku tusaya waxaa sameynaysaa qaybtan iconka furaysaa okay markaa furtid midkaa rabtee dooranay jida midkaa rabtee dooranay marka hadda waxaan rabnaa inaan aad diyaarin aan ku tuso okay inta waxaa soo furaysaa qaybtan settingka soo furaysaa waxaa imaanaysaa photographic tonic ay imaanaysaa kalarada meesha laga doorto waay okay aa leedahay intaana kugu soo baxayso intaana kugu soo baxayso inta kugu soo baxdo aa leedahay waxaad dooranaysaa saano marka hore ku yahay saa marka ku yahay jida inta saano ku noqonaa laakiin waxaa ka dhiganaysaa shek radian ka dhiganaysaa marka adeeg ugu xiran tahay siiska marka okay dhahan dabcan waa ila fahantaa aan rajeynaa marka waxaa doonanaynaa sawirkii ciyaaryahan maxamed saalax meeshu ii yaalaa doonanaynaa waa kana jeedaan sawirka aan soo diyaarsaday waa kana okay aan tagno environment-ga ugu talagalnay xoogaa hadda ujeedaana maleena masha Allah waxaa leeyahay control T markaa dhaho waxaa rabaa inaa xoogaa sawirka aan soo weyneeyo soo muuqdo okay
mahadsantihiin. marka hadda sawirka waa ujeedaan faceki as garaafti ahaan usoo qaatay aad buu u qurxoon yahay maasha allah. waxa waaye ciyaaryahankan uu soo dhool cadeynaya sawir qurxoon laga qaaday iyo anaga garaafti fiican aan saar. marka hadda muxuu inuu samaysan yahay as garaafti ahaan waaye inaan ku qurxinaa rabnaa. marka ila socda waxaan sameynaynaa backgroundkan waxaan soo qaadanaynaa oo classic ah oo shaqada Samsung ay leedahay. waxaan leenahay control C soo koobiyeynaynaa waxaan imaanaynaa inta formatkan imaanaynaa control V yaa leenahay basti okay ka dhigayda. marka backgroundka inta saddexan aan furan. marka midka ugu sareeya backgroundka soo gashanaa dul tageena alt yaa leedahay hoostan saana falaartana kugu soo baxayso kadib click aa leedahay. okay hada elephant energy kadib waxaa sameynaysaa jida sida aad meesha aad isleedahay ku soo baxaysaa bay ku qurxoon tahay. okay sidaas meesha ku qurxoon tahay isleedahay ku soo bixinaysaa. marka dhib ma lahan waxaan rabaa inaan magac u bixiyo. waxaan leeyahay afsoomaaliga dhigana okay luqadeena beenisana okay maxamed capital ka dhig farta maxamed saalax face محمد صالح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان. اوكي مركا محمد صالح عدو عفوا هامر اكو لابتوب هامر اسرع سينا face logo okay marka inta dhaho okay masha Allah. صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 okay marka meeshaan aad taaganahay xawaaye kalarkaas leekaysiyo wax kale ma dhihin saaxiibada wax kale ma dhihin. backgroundkii aan soo gashtay waxaa la dhahay bis control J aa dhahay waa duplicate gareeyay. haddii aan control J fahmin sana leedahay mida duplicate layer aa leedahay mida duplicate layer aa leedahay midkaan ka hormarnaysa. marka muxuu ku noqday meeshii dhan ayuu ku qabsaday. marka waxaa dul tagayaa layerka ayaa duplicate gareeyaa dul tagayaa alt taawana alt keyboardka computerka alt taawo fadhiga falaarta hoosta ku soo baxayso kaliya dabcan waa ay fahantiin rajayna. jida marka hoos u dhigan yahay. marka waxaan rabaa inaan wax dhan isku sii nidaamiyo. markaan dhaho waxaan leeyahay group u sameynaa aan dhaho waxyara kor u qaada sida waxyara kor u qaada. hadda marka waxaa idin muuqda waxay tahay faceki ciyaaryahan Maxamed Saalax ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka dalka Masar oo aan ka diyaariyay face logo. waxaa la lahaa in qofka wajigiisa aad loogu sameyso ama asi oo looga ka sameysto. okay intaas waa elefantiin ciyaaryahanka magaciisa soo qaadanay face logona soo qaadanay. dabcan waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysateen. fadlan hadduu muuqaalkan ku caawiyay anagana nagu caawi oo nagu dhiirigeli subscribe like share u dheh saaxiibadaada inta xiiseynaysa in ay kana faa'iidaystaan. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan isku dhaafeynaa waxaan kaga tagaynaa in haweenka Laylatul Qadriga inuu Ilaahay na waafajiyo bisha Ramadaan 10 dambe ee hadda ku jirnana inuu Ilaahay ka dhigo ragga ama dadka ama qaarka laga xoreeyo naarta. billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waqtigeena ka faa'iidaysta.